waxaan ciwaanka aad aragteen waa muddada harsan iyo xaggee loo socdaa dad badan ay weydiiyay ciwaanka muxuu yahay isaga raba inaan ka bilaabo marka maxaa keenay sababta ciwaanka aan u xulanay maxay tahay ciwaanka waxaan u xulanay 2 sano joognaa dawladda federaalka ah markii maaragtay mas'uuliyadda loo igmaday 2 sano iyo hadda ay ku dhowdahay maalintii madaxweynaha la doortay 2 sano kadib waxaan isugu nimid xafladii caleemasaarka madaxweynaha Puntland ee la doortay waxaa la qabtay saa ogtihiin shirar hoose iyo kuwo koraba waxaa soo baxday in la yiraahdo hal iscafiyo 2 sano kadib waxaa soo baxday in la yiraahdo Puntland gogol ha fidiso 2 sano kadib oo lagu heshiisiinayo dawladda iyo dawladaha xubnaha ka ah madaxdooda iyo dadka kale oo siyaasiyiinta ah oo stakeholders ka yiraahdo in la heshiisiyo 2 sano kadib inay Puntland gogol dhigto macnaheedu waxa waaye 2 sano oo dhan hawshii loogu talagalay lama qabanin saasa ku qarsan meesha hadda la rabaa inta la heshiiyo la isla jaan qaado 2 sano soo socota saysan nooga lumin aan hawshii qabsanaan u baahanahay marka taasa keentay inaan isweydiino xagee loo socdaa marka waxaan rabnaa marka match la isku yimaado haduu Ilaahay yiraahdo bisha Mars Puntland gogosha dhigto oo macnaheedu tusinaysa miisaanka siyaasadeed ay leedahay Puntland inay maanta ayada gogashii Soomaaliyeed lagu heshiisiinay ay dhigayso waxaan rabnaa in 2 sano hartay ee naga khasaarin dadkeena xisbiyada waxaan ku wada hadalnay iyo hogaamiyaasha siyaasadeed iyo xataa maamul goboleedyada wixii dhacay inta xagga la iska dhigo fatrada dhiman ama xilliga dhiman ee 2 sano waxa laga rabo dawladda inay si dhab u qabato marka taasa xageen u soconaa ay ka imaanaysaa oday dad badan marka hoggaanka siyaasadda ee dadka wax hogaamiyaba sidooda nooc rabaan noqdaan waxa la yiraahdo visionka ama aragtida ama fogaan araga hadduu qofka ka lumo wuxuu ku mashquulaa si wax walba hawl cusub inuu bilaabo oo yiraahdo midii ay dadka rabeen waatan ayaan markoo wadane uu ka noqonaya wuxuu leeyahay wartantii la rabay maaha maalmo kale haddana wuxuu galayaa mid kale maalmo kale haddana mid kale galaya maalmo kale haddana mid kale galaya qofka marka waxa ku dhaco confusion marka waxa la yiri haddii aadan aqoonin meesha u socoto wado walba waa mari kartaa wado walba waa geysaa meesha u socoto haddaad aqoonin meesha u socoto haddaad inaad kaalkacay u socoto iyo inaad boosaaso u socoto aysan ku kala xadidnayn wadada rabtaad mari kartaa tan aad xataa la saanad wad qaadi kartaa dib ma laha marka directionka iyo aragtida waa muhiim oday waxa la yiri baadiyaha beer falanaya yaa nin ku soo baxay wuxuu yiri adeer ina tilmaamtaan rabaa yaanbadii inta dhigo soo istaago wuxuu yiri xageed u socotaa maandhow markaasuu yiri adaan ka raba ina tilmaamto markaasuu yiri waqooyi iyo bari iyo koonfur kee u socotaa uu yiri ala dadka reer baadiyaha beer jihooyinka xaluu kala tilmaamsadaa moogtaa markaasuu yiri midaan u socdo ma qaano beertiisiyo fallinkii ku noqday markaasuu adeer ma tilmaamtid maandhow wuxuu yahay tilmaam martid in lagu wada rabtaa uu yiri anigana waqti ku ma haayo marka aragtida iyo visionka iyo meesha loo socdo waa muhiim dhowr jeer aad iga maqasheen war Soomaali hadaan nahay waxaan ku heshiinaa jiro waxa aan ku heshiinay waa nidaamka federaalka oo gudoomiyaha iga horeeyay sheegay inay Puntland dadka ku baraaray oo ku miro dhalay oo ku caana maale ay kamid tahay Soomaalida ku heshiisay federaalka waxaan ku heshiinay nidaam kali talisa maadaama dalka oo ka tali jiro dhibaato iyo dagaal sokeeye la galay in nidaamka siyaasiga iyo dastuurka oo noqdo mid dimuqraadiyana waa ku heshiinay oo dadku ay ra'yigooda iyo taladooda xor u ahaadaan waa mid labaad oo ku heshiinay mid saddexaad oo ku heshiinay waxay ahayd awoodda in la qaybiyo aysan hal gacan ku jirin oo dadku alle waa deegaamo iyo qabaa'il
in 4.5 ka xal xaq ma hayna la yiri markii la sameeyay waa xal saddexdaas maxaa la rabay marka dawlad kasta oo timaada ama hoggaan kasta oo yimaada saddexdaas la rabaa inuu ku sameeyo reform ama islaax ama dib u habeyn ku sameeyo federaalka xagee looga sameeyay federaalka waxa looga sameeyay waa la dejinayaa maamulka deegaanada caasimad dawlad goboleedyada awoodda inay taalo lama rabo waa inay deegaanka kiisa ugu horeysa ay gaartaan devolutionka ama maamul furfuridda waa noocaas dawladda marka maxaa laga rabaa sharcigii federaalka inay dejiso dastuurkii waa yaalaa heshiisaa lagu yahay nidaamka federaalka laakiin sharcigii federaalka la rabaa in la sameeyo waxaa la yiraahdaa administrative federal systemka maamulkiisa in la sameeyo oo deegaanada loo dejiyo awoodda oo aysan ku aruursanaanin garawe ama dhuusamareeb ama kismaayo ama jawhar ama baydhabo aysan ku aruursanaan federaalka in la dadejiyaa la rabaa maxaa laga rabaa nidaamka 4.5 ka awood qaybsiga in laga dhaqaaqo oo hanaanka xisbiyada loo dhaqaaqa la rabaa reformka halkaas oo jira oo dadku 175 dhalinyarada ah dalkan ee jaamacadaha ka wada baxay ee aqoonta leh ee raba inay aragti iyo mabda wax ku taageeraan inay nidaamka xisbiga la hormariyo oo nidaamka xisbiga la sameeyo oo 4.5 ka looga talaabo hanaan xisbiya la rabaa democratization-ka ama nidaamka dimuqraadiga ee lagu heshiiyay in la dhameystiro la rabaa hay'adaha dimuqraadiga oo nidaamka dimuqraadiga uu ku dhisan yahay garsoorkii inuu madax banaanaado baarlamaankii inay laanta fulinta iyo laanta maaragtay sharci dejinta ay kala madax banaan yihiin niman dhalinyaro ah baarlamaanka ku jira maalin dhan waxaan ka dhaadhici waayay dawladda muxuu baarlamaanka u khilaafay leeyahay baarlamaankeena ku jiraan laanta fulinta iyo laanta sharci dejinta inay laba kala yihiin dadan ka doodnaanay baarlamaanka ku jiro ku been abuurnay marka in laamaha ay kala baxsan yihiin garsoorka oo madax banaan yahay ya warbaahintu ay madax banaan tahay bulshada rayidka ay cod leeyihiin nidaamka dimuqraadiga hanaankaas lagu dejiyo yaa la rabaa dawlad kasta laga rabaa saddexa marka lagu qariyaa saddexdii lagu heshiiyay saddex lagu qariyaa rabaa cawada in kaga digo koow midda lagu qariyo federaalka markii la rabo in la dacniyo oo la diido Soomaaliya dawlad xoog leh u baahan tahay lagu leeyahay oo dawladda xoog galasay u taala waa mid dawladda dhexe gacanteeda ku aruursan taasal rabaa lagu leeyahay dawladda xoog gala fasir hadaa dhahdo ma mid sharciga sareeya ma nin qadaaga ama garsoorka madax banaan yahay ma mid warbaahinta xorta haya ma mid nidaamka federaalka awoodda baahsan tahay oo daadegsan tahay أنا دور جاران شيء بقوله برتان كل شيء مركز سكندري قدامي شهادة وحاول دون تمقدشوا باسبورك وحلو دوننا يمقدشوا وح الله عليه وحي سيرفيس دولة ده دون وحاول دوننا يمقدشوا حتى التلفزيون كقرن كمقدشوا كويكا مركز فسح بحنا دي جرني التلفزيون صافير سد وحول بوحي سنتر وهايان مقالة المقدشوا أود ده المقدشوا كوارث marka nidaamka hadaad maqasho marka dawlad xoog ah la rabaa macnaheedu waxa waaye federaalka la diidan yahay waxa la rabaa in awoodda hal meel lagu haysto waa mid lagu qariyo taas federaalka hadaad maqasho wadaniyad dimuqraadiyada la dagaalaa wadaniyad hadaad maqasho waa nidaam dimuqraadiyada lagu dagaalayo oo maxay tahay wadaniyada waxa lagu leeyahay madaxda qaranka waxa ka sheegin qaradaadkooda ha tilmaamin hadii kala wadani ma tiid كلجي والدنيا لنقولها مرك معنا هين الشباب كي أها كلجي إسلام كلجي والدنيا صباح مرك مركو على الديدة هناك الديمقراطية إلا الديدة على الربع أو نقدية هي سيدة أوجاس كشيء سيفي عن أوديجي هي النظام كمارك حرية الرأي هي أركتدا وحصودا حتى مارك الدولة دي أدونك وين أمريكا نظام الديمقراطية نباتها هيستا نترمي يا أصبح واسان ناشوناليست أو كلية قف على اللي قفي كسر جدار وحليه كاس موجود ها أمريكا إن جريد نقطة كسر جدار
war America inay garay noqoto cid ka soo horjeedo ma laha marka fiiri Soomaaliya laga dhigaya Soomaali xoog leh Soomaaliya weyn Soomaali xoog leh anaga waxaan u naqaanaa Soomaali sharciga taliyo dastuurka sareeyo garsoorka madax banaan yahay laanta fulinta iyo tan sharci dejinta ay kala madax banaan yihiin saxaafadu ay xor tahay dadku ra'yigooda ay cabira karaan afkaarta lagu tartamo suuqa soo dhigato fikirkaaga إلهي محمد تعالوا إلى كلمة سواء أنا هذا اللي سميه تسارنا عنه نظام الديمقراطية مركز اللي عبوريه وحدوش على ساريا إنها تهي قفوا دنيا جديدا مجلس هذا الناس توامه قالوا قرية وحن وحوايه شرقالك نظام كاللي هذا تفسير كشرقالك أفكار عربي وحلوية بغنا عربي أخرسته نظرية المؤامرة اللي هذا conspiracy theory ayaa la Ingiriiska maanta dhan waxa laga sheekeynayaa hagardaamo nagu soo socota oo qatar ah oo ilaa iyo Mareykan ka soo bilaabata ilaa iyo Ethiopia daba haysata oo Soomaaliya ku wajahan in loo tashaday in la shirqoolayo wax allaale wixii dhacaaba hebela ka dambeeya dawlad hebela ka dambeeysa kooxdaas ka dambeeysa ajnabiga ka dambeeya waxaas maanta dhan tafsiirkaas shirqoolka ah yaa la rabaa dadkii in looga mashquuliyo inay isku sameeyaan waxa la yiraahdo self criticism inay ayagu is dhaliilaan ay dhahan war maxaa naga qaldan waxa la yiri Brazil iyo farqiga u dhaxeeya Japan waxay yihiin labadaba waa jabeen Brazil markay jabtay waxay tiri la yiri yaa annaga nashar qoolay ilaa hadda meesha ay fadhisayaan nashar qoolay ku jirtaa laakiin Japan waxay dhahan la yiri xageen dhibaatada ka jirta xagee anaga la anahay isweydiiyeen qofka labadaas loo isweydiinaa binaadanka marna waxa isweydiinaysaa yaa ani shirqoolayo Soomaaliya inay saan ahaataya ka dambeeya isweydiinaysaa markaas lagu leeyahay dawlad hebel inta waa qola habeenkii waxa la qaata inta soo macdana xagga waxa laga baxa shirqoolkaas nadariyada mu'aamarada laga shaqeeyaa laakiin ummadaha kale waxay isweydiiyaan xageen anaga dhibaatada ka jirta وانا قران كميده وشاغي اولما اصابتكم الهي محير مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا حقين نوغا تمد ومركي احد لجبي صحابه موقته قل هو من عند انفسكم عليه بروبلمك وا idinka albax meel kale waxay kaga yiin badari adkaadeen uxuda laga adkaaday idinka isfiiriya leeyahay eedda meel kale ha saarineen marka nidaamkaasna waa nidaamka la rabo in wax lagu shirqoolo oo dadka looga lumiyo itijaaha federaalka si kasto loo yiraahdo waa arin maaragtay Soomaaliya lagu burburinayo waa nidaam qabiili ku dhisan waa nidaam lagu kala hadda waxaan aragnay in lagu caanamaalayo oo dadkii bulshooyinkii maanta garow jaamacadaha kama dhisnaadeen dawladdan uma dhisnaateen wasaaradaha ma dhisnaadeen jidadkan lama dhiseen aragteen waxaan dhan ma sameysmeen waxaan rajaynaynaa maamulada kale oo curdunka ah oo federaalka cusubna inay ku daysadaan ayagana oo dadku ay noqdaan nidaamkaas nidaam lagu caanamaalo oo noqdo dadkii indhahooda ku arkeen laakiin ma rabno inuu regionalism oo noqdo oo gobolaysi ama saas oo ekaado nidaamka marka balance gareynaya asaga oo inuu gobolaysi ku ekaado alleen dadkii moogta haday Puntland joogan Puntland bay arimeeda ku ogyihiin yaa talaabsiinay xisbiga talaabsiinay nidaamka xisbiyada waxaa la rabaa xisbiyad muuna qaran national character inay noqdaan oo qof reer Puntland mid Jubbaland mid Galmuduga mid maaragtay ku jiraan Hirshabelle kan koonfur galbeed xisbiyada markay isku gudbinaya deegaanada waxa isku gudbinaya nidaamka xisbiyada iyo isku gudbinaya xisbiyada waxay noqonayaan wixii isku gudbinayay oo muunada qaran abuurahay oo xataa hadii regionalismka xoog samaago waxa balance gareynaya waa nidaamka xisbiga ma aha awoodooda dhaxal u aruuriy gacanteeda ma aha taas ma aha qalad waa taas waxa balance gareynaya hanaanka xisbiyada oo lagu wada jiro oo loo dhan yahay oo la yiraahdo inclusive politics kaasa wuxuu sameeynaya mid ka abuuraya inuu san federalismka gobolaysi noqonin oo national noqdo xisbiyada ayaa sameey kara taasaan marka rabnaa in hanaanka xisbiyada midka la xoojinayo oo noqdo waxaan rabnaa marka labada sano
maxaa harsan wixii la rabay in la qabto xaggaan iska dhigaynaa waxa la rabay in la qabto maxaa kamid ah ciidan qaran Soomaaliyeed in la dhiso shirkii London oo ka soo bilowday waa ogtihiin markii la qabtay heshiiskii amniga lagu heshiiyey Brussels la tagay haddana heshiiskii amniga haddana lagu heshiiyey mar kale oo marxaladda kala guurka amniga ah amisom in dalka laga saaro 2020 ciidan Soomaaliyeed oo muunad qaran leh oo professional ah in la dhiso waa wixii la iska rabay ma la sameeyay lama sameeynin awada ma qiimeeyeen qof walba og tahay waxa kale oo la iska rabay dastuurkii la dhameystiro dastuurka qabyada ah oo dhowr iyo 10 sano qabyada ah in la dhameystiro la rabay oo awoodaha iyo sida loo qaybsanayo khayraadka iyo sida loo maaragtay structure-ka hanaanka dhismaha dawliga ah soo noqonayo in laga doodaa la rabay oo dastuurka la furfuro oo dadku ay ka doodaan oo bulshada loo soo bandhigo oo la dhameystiro la rabay maxaa la rabo kale ugu muhiimsan awooda raba in xoog saaro doorasho qof iyo cod in la qabto doorasho cod cad maxay marka ahamiyad u leedahay labada sano marka waxaan rabnaa haddii la isugu yimaado Garowe ama haddii la joogo bisha Mars ama haddii federaal la joogo ama haddii maamul goboleed la joogo ama haddii hogaamiyaal xisbi la yahay dhammaanteen waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno sidii loo qaban lahaa doorasho qof iyo cod ah idinka naftiina 66 waa ku daasheen odayaashii sidii loo dabaajinay nafta ka baxday sidii kursigii maaragtay 20 wiil oo ilma adeeraa hadda meeshii gabdhaha waa loo diiday Puntland waa la socdaa hantiina waa ogtiina 20 wiil oo ilma adeeraa kursigii isku dilaysa oo waxa lagu kala sooci karaana aysan jirin because nin walba jufada ka dhashay criteria maxaa waaye waa inaad jufada tahay marka suldaankii isinkii ugaaskii boqorkii waxa rabta dheh soo u kala saara wiilashan soo u kala xigsada ma yaqaan soo ku kala saara ma yaqaan wax criteria lagu kala bixiyaa malaha idinka naftiina waa ku dhibtooteen 4.5 waa lagu dhibtooday 275 waa lagu dhibtooday waxaan u baahanahay nidaamka furan ee xisbiyada ah haddaan loo gudbinin natiijada waxay noqon kartaaba inaan gadaal in loo noqdo Puntland iyo gobolada iyo federaalkaba waa in hanaanki qabiilka laga gudbaa kaas waa lagu soo caanamaalay waxa hadii lagu soo caanamaalay in la ag jooga ma waa in hore looga socdo hadii kale asaga wuxuu keenayaa backlash asaga dhibaato keenaya intuu soo dhibaato loo keenin kaniiniga moogtahay dhakhtarka wuxuu qoraa doosiye go'aan uu qoraa lama rabo inuu ka batana waa dhibaato haddaad cuni weysana waa dhibaato marka doosiyegii waa dhaafay hadda baashan way nagu badatay marka waxaan rabnaa inaan arintaas aan xoog wada saarno oo de Puntland daatihiin hormada u noqotaan federaalkii saad Soomaali ugu sheegayseen waa ka dhaadhiciseen waa in la qaateen kana idinka linka rabaa inaad ka dhaadhicisaan daadis waayana xarunta halkan uga furnay wada jir oo ugu horeysay hanaankii xisbiyada inaan nala qaadaan oo Soomaaliya nala geysa oo dawladdiina markii shirka la qabto u sheegtaan oo ayada ay fuliso madaxweyne kasta oo ogaay Puntland waa ballan qaadi jiray laakiin hadda in la isku qabsadaan rabaaho farqaha la isku dhago leeyahay haddana kaas la sameeynin meel kale ma jirto marka maxaa rabnaa labada sano dawladdeena federaalka waxaan ka rabnaa annagana aan diyaar u nahay inaan hortiina ka ballan qaadayna Soomaali inaan kala shaqeyno goboladana aan ku wada hadalnay madaxdooda dawlad goboleedyada in sidii doorasho loo qaban lahaa laga shaqeeyo bal waxa kale oo xagga noo dhigo doorashadii aan u baahanay maanta ka bacdi marka waxaan rabnaa waxa laga hadlaayo madaxweyne maamul goboleed dawlad goboleed mid federaal mid prime minister xukuumadeed wasiir xisbiyo waxa laga hadlaayo sidii loo qaban lahaa doorasho qof iyo cod ah arinta doorashadan looga heshiilahay dhowr qodob aan rabaa marka in la qabto madaxweyne xashaq waa ogtihiin madaxweynihii ka horreeyay madaxweynaha hadda jira 2015 bartankeedii markii la maray baarlamaanka hor yimid wuxuu yiri hadii lagu ogaay inaan doorasho qof iyo cod qabto lama qaban karo Soomaaliya aan tashanno Soomaaliya muxuu yiri aan tashan markaas waxa la bilaabay processkii ka yimid ergooyinka la socotiin soo saas ma ha dawladdii 2 sano waa dhamaad asaga markuu 2 sano joogo saas keenay aliis umadii u saraxooday waa hor yimid wuxuu yiri lama qaban karo doorasho qof iyo cod war wixii kale aadayno aan ka wada hadalno waa tii madasha la sameeyay waqtigiin waa tii marna xamar
marna Kismaayo marna Baydhabo marna Garowe lagu shiraaye ugu dambeyntiina ay ka timid natiijada aragtayna doorashada madaxweynaha cusub lagu soo doortay dawladdii hadal waa kala anahay doorashada ku saabsan waqtigiina waa gabaabsi waa socdaa waxay noogu maqan yihiin ma ogin dadkiina ma leh warbaashii qof iyo cod waa soco kartaa iyo ma soco kartana ma leh war waxaana taladan hal raadiyana ma leh maalin dhaxdaas hal mar madaxweynaha wuxuu yiri sharciga doorashada waa in isbuuc lagu ansixiyaa warkiis dib duma loo maqan sharciga doorashada meel ku dambeeyay ma naqaan walwalaana soo galay marka doorashadan ogaada ama Puntland ha ahaato ama federal ha ahaato ama galmudug ha ahaato ama koonfur galbeed meesha rabta ahaatee waa inta yartaaho political stability ga xasiloonay siyaasadeed oo la haysto waa kuraastan la isku badbadalaya iyo hanaankan yarka oo doorashada oo qabaliga oo ku soo caana maalna waa political stability iyo weyneed lama gaarin taas goorma la gaara dadku markay qof iyo cod u soo baxaan oo qofkay rabaan ay doortaan xasilooni siyaasadeed oo dhab ah markaas la gaara baasha hadda waxa haysto elite ka haysta wali elite ka waxa la yiraahdaa quraanku wuxuu yaqaanaa mala ya ayuha mala u maqashin quraanka asoo ku soo celcelinay mala la yiraahdaa waa madaxweynta haysta hadda xukunka ama isimada ama siyaasiyiinta ama xildhibaanada qoladaas haysata wiilka dhalinyarada ee gabadha dhalinyarada waxa la leeyahay wiil baa hadda ii sheekeeyay niman dhalinyarada oo 12 oo qarno iiga soo safray oo cawada xafladana fadhiya rajaynaya waxay dhahdeen annaga niman dhalinyaraha nahay waxaan leeyahay madaxweyntii ma tiidin go'aan ma lihidiin taladii waxba kuma lihidiin meelaan ka soo galna ma leh taladii dalka xisbiga waxaan u rabno waa saasay dhayn nidaamka xisbiga kaalinteena yaan ka qaadan karnaa laakiin nidaamyadan kala socda waxba kama qaadan karnay banaanka lagu celiyaa ayaga hablahaba dhalinyaradii hablaha banaanka lagu qoraa odayada iyo siyaasiyiinta waaweyn iyo waxa kala goosta kuraasta iyo wax saas ah marka waxaan rabnaa annaga arintaas in laga baxo dawladda memberkan waxaan uga baaqaynaa inaan kala shaqeynaan diyaar u nahay gobolada iyo dawlad goboleedyada diyaar u ah laakiin ajandihii doorashadan ka rabnaa ilaa iyo May ama June ugu dambeysna waa ka rabnaa haday May iyo June ajandaha doorashada keeni waayaan waxaan qirsanaynaa waxaan ogaanaynaa waxaan fahmaynaa inaan doorashada loo wadin inaan doorashada loo wadin dawladda federaalka June haysata waxaan ka rabnaa inay dhahaan hanaankii doorashada xisbiyada badan waa kan haddii kale in maadeerayaal Soomaaliyeed tol hadanahay talo ma hayne hanaankii doorashada laga wada hadlo sida madaxweynaha hore u yiri oo kale laakiin in la isku warqarsado ma yeeli karno doorashada waa in banaanka la soo dhigaa waxaan rabaa markii inaan ku soo gabagabay hadalkayga Soomaaliya waxa la dhihi karaa xoogaga siyaasadeed ee isku haya saddexan u qaybi karnaa in waa inta dawladda rabta dawlad dhisidda rabta Soomaaliya dawlad inay soo noqoto rabta Soomaaliya madax banaan oo mida oo karti iyo dadnimo leh soo harto inay noqoto rabta intaas waa kala duwan yihiin dawlad goboleedyada leeyihiin xisbiyay leeyihiin madaxda xukunka fadhisay leeyihiin kuwa hore u hay jiray leeyihiin kuwa hadda soo socday leeyihiin intaas oo dhan waxay rabaan sidii loo dhisi lahaa dawladnimada Soomaaliya aragtidooda waa kala duwan tahay walaw sha Allah ilaahay muxuu la jacala ummad dadka hal ka dhigina ilaahay hal laga ma dhigin soo midabkeena iyo muuqaalkeena u kala duwan aragtideena u kala duwan dadkaas waxay rabaan sidii dawlad Soomaaliyeed loo dhisi lahaa laakiin waa kala aragti duwan yihiin ani waxaan u aqaanaa xoogaga siyaasadeed ama stakeholderiska raba inay dawladda ay dhisaan dawladnimada Soomaaliya maamul gobol siyaasiyiin kuwa xukun jooga kuwa hore u hayay intaas oo dhan qolana waxay diidan tahay dawladnimada Soomaaliya oo waa dawladiid nidaamkeena ka duwanay wataan waa kooxda la yiraahdo al-shabaab iyo wixii ka farcama daacish iyo wixii xaq ka sii xiga nimankaas dawladnimada Soomaaliya ma rabaan haddaad warsato waxay ku leeyihiin waxaan rabnaa khilaafo islaam ah imaaro islaam ah war imaarada islaamka seed u rabtaan dhaadana kuma sheegi karaan waxay ku leeyihiin Soomaaliya waa loo simeeyaa qofka waxa muhiim ah inuu muslim yahay jinsiyadu raba haysto Soomaaliya lagama xigo war waa la kala xigaa adduunkan qolobo meel ay leedahay deegaan ay leedahay dawlad ay leedahay bal noo kaadiyo maya haddaad Pakistan ka timid haddaad America ka timid haddaad Mauritania ka timid
Soomaaliya aa muslim tahay waa dalkaagii aaminsan yihiin magaca Soomaaliya afkooda soo maro waa dhageysan kartaan hal mar kelmadda Soomaali iyo Soomaaliya afkooda kama soo baxdo erayga islaamka iyo muslimka isticmaalaan nimankaasna nidaamka hadda noo dhisan in la dumiyay rabaan waa dadka dawladda ka soo horjeeda iyo nidaamka dawladnimada Soomaaliya qolada saddexaad idinka reer Garowe ma taqaanaan anaga naqaan markaan Muqdisho joogno meel xalan la yiraahdo degan yihiin international community waxa yiraahdaa idinka ma garanaysaan waa u shaqeey jira hadda min saaxiibkii aan la hadlayo waxa iri dhagaxaantii xirxirneeda soo marayo marmaran UN ku shaqeey jiraan Garowe ma jiri dhagaxaantaas lagu xareey jiray hadda nin iska socdo waxaan ahay xoro meesha rabo mar qolaas waa saddex maaloodan waxa mar jooga marka nima saaxiibaday ya anagoo meesha sadxiga iska fadhino dabaysha iyo iska leersanayna 25 bishii December ahayd waa Christmas day-gi ya waxa la riday firework burleerkan ciidaha la rido ya xalana laga riday markaas waxaas ma ahay markaas la yiri awoodo inay 25 taas oo moogid waxa loo dabaaldegayaa Christmas-kii marka waxa igu soo dhacday nimanna halkaas ay degan yihiin oo firework-koodii ay faamiladooda inta aadi waayeen meeshaan ku shiteen baashi haddaad xoogaa sii socoto xamar inta uga baxdane nimankii kala jooga oo shabaabka ahayo dhahay annagana waxaan rabnaa khilaafada islaamka inaan joojino intaani kalena meel dhaxan isku bursanaynaa oo cariiri ah luuq dhaxe ruuxay ninka marka wasiir oo ila joogo wasiir waxaan dhahay saaxiibada ma u sheegtay space-ka inaan isku nabad gelino yarka cariiriga asha dhaxe aan wada shaqaysano oo isku dayno nimankaasna inaan iska bixino nimankaana iska celino aan ka heshiino mayo dhahay maya horta waa idink in meel leen saaraha yiri waa inaan iska ftan qaan oo wasiir ah marka annaga waxa rabnaa Soomaaliya waa saddexdaas xoog ayayst anigu marka inta kale Soomaalida ma saddex ay ugu jiraan intaas marka waxa la rabaa in heshiis laga keeno dawladnimada ay ka heshiiyaan hanaanka ay ka heshiiyaan systemka ka heshiiyaan waxa beesha la aadi lahayd ka heshiiyaan yaa la rabaa taas u baahna laakiin haddii ninkii xukunka ama talada yimaado uu ku fikiro qoladaas xalana dib u dhig wada xaajoodkooda iyo qoladan u kaadiye bal intaan ka soo adkaa wada u isdhaho afarta sano ka dhamaanaysa soo waxba ka adkaanin soo u socdo uun hal cafiye ku soo dhamaanaysa meel ma tagaysid meel la iska adkaa karo nimanka Lubnaanta anagoo kaleeta marka halku dhig fiicanay ay sameystay waxa la yiraahdaa la ghaaliba wala maghlub nin adag iyo mid la adag yahay ma jiro shacaarkooda waayaba annaga wada jira daanay maxaa waaye is ogol isla gudoon maalintii shacabka Soomaaliyeed inta dooda dareeraan ay codka u dareeraan ay ku siiyaan vote-kooda oo intaas oo milyan oo cod lagu tiriyo la yiraahdo hebel ku guuleystay mandate-kii dadka wixii ka horeeyay inta ugaas iyo oday dhaqan ku soo xulaayay baarlamaan 300 oo ku dooranayo waxa tahay legitimate sharciyo bahaysatay talada waa lagu leeyahay dhaxda iska dhigay marka soo daasho dawladii soo maraya dhasaas ahaayeen markay soo daalaan qaarna waa iska tagay qaarna dhaxday dhigay markay soo daalaan maalin kasta markay iskool weedo ma ka bixi karno qof intuu soo daalo yiraahdo waa soo daalay wax laga bixi kara maaha dhaxda in la iska dhiga talada ku fiican tahay la wada wadaago waxaan bogaadinayaa Puntland inay isku keentay xoogagii siyaasadeed oo kala fikirka duwanaa kala aragtida duwanaa inay isku keentay waa bogaadinayaa waa horumar miisaankeeda siyaasadeed ku tusaya inay gobashii nabadda dhigtayna waa bogaadinayaa inay dhul nabad tahay oon iska maro meesha rabo biibito iyo cafeteria iyo dukaan iyo meelan tagin iyo baadiyaha intaba labada dhinac ee magaalada ma jiro anoona cabsi dareemayno runtii oo xor ah yaan marayay waxaasna waa horumar waxaas oo dhan ka sii muhiimsan iyadoo ciidan ajnabiga qof ajnabiga joogin oo amisom joogin oo Itoobiya joogin oo qolo kale joogin inay Soomaali madaxdeedii oo ay ammaankeena sugi karaan ku tusaysaa inaan kalsooni siino bas ay u baahan tahay inaan kalsooni siino ay u baahan tahay qodobka harsan oo doorashada ka harsan oo ka taga waxa waaye waa hadalka federaalka iyo walaalahan Soomaaliland laba sano waxay yarayeen in la wada hadlay u baahan tahay wada hadalkaasna waa qasab inuu furmo oo wada hadalkaas dib loo furo waa laga maarmaan idinkana waxaan ka rabnaa reer Puntland daatihiin arintaas soo dhaweynteeda iyo arintaas isku keenkeeda iyo arintaas soo dumideeda
inaad ka shaqaysaan wanaagga dadka Soomaaliyeed waa inay wada hadlaan oo ay wanaag ku wada hadlaan in la is dhaliileeyo ama la is dhiileeyo ama la is colaadeeyo wax weyn ma tarayaan annaga waa ka soo daalnay mana u soconno waxaan ka ballan qaaday dhinacaas inaan u soconin laakiin wada hadalka iyo walaaltinimada iyo in la isku yimaado arintaas waa arin muhiim ah talada dalka in dhaxda la dhigo waxaad ogtihiin dad badan laga yaabaa inay taariikhda aad u arag islaamka nabiga maalintuu geeriyay kaleey salaatu wasalaam saddex maalin ay saxaabadu ay ka doodayeen sida la isku xukumayo cid uu xukumaysa nabigana lama aasin aaskiisa dib loo dhigay muhaajiriin iyo ansaar isku qabsadeen waxa la yiri talada halka noo dhiga negotiation ah bilowday nimankii muhaajiriin waxay dhahdeen annaga iskala talada nimankii ansaarna xagee tala ka leedin talada annaga noo timaadeen oo in marti gelinayo meeshan joognay seed ku yeelanaysaan yay dhahdeen dood minna waxay dhahdeen amiir wa minkum alwazir hatta negotiation ka soo gaaray ilaa markii dambe la isku raacay in taladii loo dhiibo sayidina Abu Bakar ogolaasho dadka ku yimid iska ma imaanin asaga markuu geeriyo rabay leen geeridiisa waa yaqaanay wuxuu yiri inay dardaarma wuxuu u dardaarmay sayidina Umar inay talada ay u dhiibtaan waana ka ogolaadeen laakiin dadkii wuxuu yiri anigu waxaan leeyahay soo jeedinta laakiin ogolaashaha idinka iska leh way ka ogolaadeen sayidina Umar de waad garanaysaa masaajidda lagu dhex dilay fursad ma helin oo dadka oo dardaaran iyo wax uu gudbiyo gudiya la saaray wala tadawq qofooda la dadka soo weydiiyo waxay rabaan waxa la kala doorinsiyo markaas Ali iyo Uthman dadkii Uthman ay doorteen Uthman markii asana waa la dilay wala socotaan sayidina Uthman soo kitaabkiisa akhrinaya la dilay dadkii markii dambe waxay calaamad saareen sayidina Ali waxa la yiraahdaa markii nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam hanaan muayyan ah iyo qaab muayyan ah saas yeela ma dhihin asawna kala dardaarmisay isku xukumayaan nabiga geeriyooday mana ahay inuu moogaa dadka u daayay marka waxa ugu muhiimsan waxa waay bini'aadanka waa inay talada ka heshiyaan hadii talada laga heshiyo oo sida la isku maamulayo sida la isku hogaaminayo sida la isku maareynayo sida loo baratamayo sida xukunka iyo talada loo qaybsanayo hadii laga heshiyo xasiloonida iyo horumarka markaas uu imaanaya idinka marka hadda reebutul hadaatihiin waxaad haysataan xasiloonidaas laakiin waxay rabtaa in shacabka laga qayb geliyo oo dadweynaha loo dajiyo midda aan rabno inaan kala shaqeyno nagala shaqeysaan oo hore aan u wadno waa nidaamkaas xisbiyada waxaan ku ballamaynaa inaan dib loo noqon inaan 66 lagu noqon inaan oday lagu noqon inaan 4.5 ka gudubno nidaamka xisbiyada inuu noqdo legacy-ga soo socda ee hoggaan iyo madax iyo Puntland iyo Soomaaliba aan ka wada shaqeyno dawladda waxaan rabnaa federaalka iyo madaxdeedana waxa aan ka sugayno wax kala ma hadda hawlihii kale oo dhan waa iska dhaafnay waxaan rabnaa doorashadii sida loo qabo lahay iyo hanaankii ku dhici lahayd iyo sida doorashada tahay inay soo bandhigto idinkana waxaan ka rabnaa mas'uul kasta Soomaaliyeed oo maqlaaya arinta doorashada in laga wada hadlo waa maasantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi